السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابته سوينا هذا الكل جوجا دقمة الديني له دقمة هذا هو عند العسكر odayaasha 6 sano jirka la haya لكن waxa maanta macnaha oo YouTube ka diyaar inooga madax sare halka dalka saarna oo jeedaan waxa u dabaldegina maanta waa maalinta maxaa kor ka muuqda dhulay maanta maxaa waaye kowda luliyo naga jidtay hadda lixdan laba sano maalidii xuliyada la qaatay laba sano walba ايه الباندا صح واقف ما انت صار كان لحظه يلا واقف يلا باجرا علم كانوا لحظه دكسده لما تشبان علم وقتها الحمد لله رب العالمين عمري جاي جالسي ولا فرح ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ورقيسان adeer waxa dadkii marka xuriida la qaaday 2 sano jira way maanta ku nooloonayno oo arkayno calgan quruxda badan leh yaani iyo xurnimadan ku helnay wadaniga dhabta Allah dhar maanta waxa weeye waa maalintii hambaliyada calanka Soomaaliyeed waa maalintan dad noqonay la kala sama waxaan ka soo qayb galay dagaalkii 77 sawaxan anigoo kaliya hurxooda dalka Soomaaliyeed si weyn alxamdulillah rabbil caalamiin waa ku xamdinaqaya waqtigaas waxaad iga warata hadda anoo kale ee jiirka lamidoo kale ina waxa rabnaa caawa markii arkaa macnaha muuqaalkaaga inta badan ay wax ka faa'iidaan وانا كنت واي ارق waxa reedo Soomaali waxa yiraahdaa macnaha qofka yaani hortaajiriga oo guulka wax weydiin waxa keenaysa waxaarno inaan noo qaado ama noo sharaxdo waqtigii hornabada calankaas mid lagu keenay qaabkii macnaha waaye dadkii gabanimo dirka sida macnaha hawa dhagaxtuur hawa taako sida Cabdulla Xasan Sayidko kale ayaa dadkii intaas aqoonso kulantay wax noogu faahfaah qodobada maas aniga hooyaday waxay ahayd dumarkii daabaca iyo darmooyinka ay farkiso si weyn ku bixisay xorriyadda ما شاء الله هايو وده يذهب صفا صفي عن ابهينا وحكم لها الى العربي صح اللي ورجي دينا كيو هريه الصومال وكا ما شاء الله انا اقول تدبي تبع حوقه الصومال كلامي ما شاء الله سوى عن وداير مقصدين تنزل وقف داير داير ما شاء الله نجح ومعطي صح لكن هذا إفنو بحياة ونوف تنتهي وحنا كاين كرة تانية يا دليل سوين يقولوا إني موقف في سؤال كيف أقول لك كذا يا غالي سبما سوى سفيعا مع إنك عنايقا سوى عن أنا وقتي وصار لما يسمى كل هذا وقت لله حل جينا أنت سفيعا الأدور لماذا أهل جنتان أو إلى مكان وقت سفيع لما أنت وحاسلنا إن شاء الله ما كمثل كذا كذا عيارة الصومالية أكسرت مشان سوين وينين سوين سي والدي سوى عويس موجود سفيعا وحياة بدن مركا ما كان ما كأوفيشال على سعودين أصحاب سبسكرايب ولا شير بدن عذرنا وحواي دتك أنت بدن وصو جروعة دردار معان وعد نوسي وعارنتي أنا سؤالك لكون قندونا ويدين دونا ولبه كنتي وحا كميدا وحيابا ونقطة اللي نبض إن نبض هذا معان because معايا رقفك هذا ما تن نقول مجرته نبض هنا جرين نبض وعكوي ما تان نلاشة مركينا كود دالنا نبض تزيد جرانته هاي روح كلك ويدينه يعني وقتك وحي قريبل اسمع سيدي هرو يعني هذا انت بوعر شيء الصومالي قار اسمه بقى شاء الله واسمه قلقيه دب بدن كان كيما تعق اسمه قليدا dadkii xilliga jiray amar qaadashada shacabkii dawladda dadka sidee macnaha ahayd waqtigaas dadku markii hore iminka uu baxsan yahay tacliin ruux si weyn xilligaas uu garaadsaday jaamacadina ma jirin صح aqoonta yar si fiican iskoola sarena ma jirin si wacan laakiin kadib baa la gaaray oo tacliintii horumartay haddana boqolkii waxaad arkaysaa konton baa heer jaamacadeeda sax aqoonyahan dugsigii sarena wuxuu la mid noqday qof wax ka soo dhigan si weyn marka iminka aqoonta iyo badnaanta dadka bulshadu intuba ay badan tahay laakiin waxaa la rabaa aqoontiinu inay noqoto mid sareyso oo koreyso si fiican
oo caalamka la tartanta laakiin haddii aqoontii ay waxba kordhin weydo oo adigu fikri weydaan oo rag dan gaara ree hebel iyo wax kale ku dhaliyaan meeshii ma dib uga noqonaysaa tabteen noqonaysaa ku laabanaysaa sax marka iska ilaaliya mugdiga aqoontiina kaashada ilaahay kaashada ku dadaala in wax la idinka dhaxlo SYL waxaad ka dhaxasheen calankaas maanta xurmada ku dadaala idinkana in wax la idinka dhaxlo marka si wacan adeer insha Allah tas dhamaanteen Soomaaliya toostos Soomaaliya noolaato waa maanta maalintii waxa waaye calanka Soomaaliya ciid waad dhamaantiin waxa idin leenahay asxaabay sidaas oo kale adeerna aad baad u maasantahay annagana taladu adeer nagu waaniyay waa inaan dhaqan gelinaa aan dalka iyo dadkaba macnaha horumarkiisa ka shaqeynaa